السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة برنامجkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa xubinteennii sidee ayay ku soo islaameen. Fadlan walaal haddii aad nagu cusub tahay riix subscribe-ka oo furo gambaleelka si aad ula socoto wanaagyada aynu hawada ku soo marin doono. Mahadsanid. Magacaygu waa Adwaan Bernardo. Waxaan ku dhashay magaalada Paris. Waxaan ahay 39 jir. Hooyaday iyo aabahayna waxay ahaayeen Masiixiyiin. Caruurnimadeydina maanan ogeyn inay jiraan diimo kale oo aanan ahayn diinta Kirishtanka. Waxaan qaatay diinta Islaamka 2001 mar aan joogay dalka Mareykanka. Tanina waa tallaabooyin isxiga oo aanan ilaawi doonin nolosheyda. Waayo waxaan halkaa kula kulmay saaxiibkayga Muslimka ah, kaasoo ahaa Faransiis asal ahaantiisa ka soo jeeda Algeria. habeenkaana waxaan ka soo baxay meel lagu tumo muusigada maadaama aan ahaa muusikiiste oo Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa ila doonay inaan la kulmo wiilkan dhalinyarada ah misana muslimka ah waqtigii ugu haboonaa iyo waliba meeshii ugu habooneed. inkastoo aan ka soo baxay meel lagu tumto macaasidana lagu faafiyo, haddana la kulankiisu waxay ii ahayd dhimrin iyo wanaag. wiilka dhalinyarada ah waxa uu socday magaalka dhexdiisa maadaama ay ahayd markii ugu horeysay noloshiisa oo yimaado halkaan, oo waxa uu maqlay anigoo ku hadlaya luqadda Faransiiska. deedna si degdeg ah ayuu iigu yimid isagoo waliba ii sheegay inuusan qofna ka garanayn magaaladan, raadinayana meel uu dego. deedna waan caabiyay anigoo waliba dejiyay meel ka soo horjeeda meesha aan deganahay. waana markii iigu horeysay nolosheyda oo aan qof muslim ah si toos ah ula kulmo. kadib waxaayna dhex maray sheekooyin fara badan oo waxaynu ka wada hadalnay diimo fara badan. kadib waxa uu ii hadiyadeeyay saaxiibkay nusqo quraanka kariimka ah. waqtigu wuxuu isrogaba waxa ay haleelay jiro naadir ah taasoo saameyn ku yeelatay caafimaadkayga. kadib waxa uu igu yiri saaxiibkayga waa inaynu marnaa wadada saxda ah ee la isku daaweeyo oo waa inaan ku quraan saarnaa. kadib waxaan ku iri quraan saar oo miyaan ku bogsanayaa? wuxuu saaxiibkayga igu yiri quraankan Rabbi subxaanahu wa ta'ala waxa uu soo dejiyay in la isku daaweeyo, oo waxa uu ii keenay wiil kale oo muslim ah. deedna labadooda ayaa i quraan saaray. alxamdulillaah waan ku bogsaday oo waan ku caafimaaday. balse maalintaasi waxaa iga soo haray ama kaag iyo yaab, waayo waxaa dushayga lagu akhriyay wax aan fahmi waayey iyo weliba luqad igu cusub. balse markii dambe alxamdulillaah waan garwaaqsaday oo waan gartay inay ahayd luqadda Carabiga, kaasina uu ahaa quraanka kariimka. dhab ahaantii Allah subxaanahu wa ta'ala waa mid ka hufan oo ka nasahan xumaan oo idil, waana midkii igu daweeyay quraankiisa qiimaha badan. maalintaa kadib waxaan ogaaday inay tahay diintani diinta ugu saxan diimaha loona soo dejiyay inaga daraadeen. quraankuna oo inoo yahay hanuun iyo waliba dawo, waana sababta aan ugu qancay diinta Islaamka. isbuuciyo yar kadib aniyo saaxiibka waxaynu isku raacnay masaajidka, halka ayaana laygu qabtay ashhaadka. weli waan xasuustaa waxaan halkaa kula kulmay saaxiibo fara badan oo muslimiin ah, iyagoo waliba midkoodba midka kale uu isiinayay hadiyad, waliba asigoo igu leh ku soo dhawaaw diinta farxadda iyo reereynta, diinta baraarada iyo waliba barwaaqada. magacaygu waa Axmed. waxaan ahay 39 jir. waxaan ku dhashay waddanka Filibiin ee caasimadda Manila. waxaan la soo barbaaray qoys haysta diinta Kirishtanka, gaar ahaan madhabka Kaatooliga. aabbahay wuxuu geeriyooday aniga oo 5 jir ah, balse hooyaday waxay ahayd qofkii sabab u ahaa inaan ku dhaganaado diinta Kirishtanka, oo waxaynu ahayn kuwa aada kaniisadda maalin walba oo Axad ah, walow aan aniga si qaas ah u xaadiri jiray casharada ka socda kaniisadda mar waliba. sidoo kale waxaan la kulmi jiray qudaamta kaniisadda, kuwaasoo shaqadooda ahayd inay daryeelaan carruurta, deedna ka dhaadhiciyaan waliba diintaasi. balse arrinta la yaabka leh ee aan ku bartay diinta Islaamka ayaa ah aadaanka. waxaan kala jeedaa codka dheer ee ka soo baxa masaajidyada maalintii 5 jeer. mar waliba oo aan u socdo kaniisadda ama aan ag marayo masaajidka ayaan maqli jiray codka. maalin maalmaha ka mid ayaan istaagay masaajidka hortiisa anigoo waliba jeclaystay inaan galo masaajidka, walibana isweydiinayo su'aalo dhowr ah. talow muxuu yahay dhismahan? talow yay yihiin dadyowgan sii galaya? talow maxay ka samaynayaan halkaa? kadib waxaan go'aan ku gaaray inaan galo gudaha masaajidka. waxayna ahayd markii iigu horeysay nolosheyda oo aan galayo masaajid. arrinta la yaab kale ee aan ku arkay masaajidka ayaa ahayd inuu lahaa dhax aad u ballaaran, deedna aanan oolin wax kuraas ah. derbiyadiisa iyo hareerihiisa oo idil ayaan fiiriyey, mana ku arag wax calaamad Kirishtan ah
ama xitaa calaamad kale sida ay kiniisadaha ugu yaalaan calaamadda Kirishtanka. Kadib waxaan isweydiiyey tolow sidee u caabudayaan qaaliqooda ama midka abuuray iyadoo aanan haysan wax sumad ah? Sidee ayay ula hadlayaan rabbigooda iyagoo aanan haysan wax ay hor istaagaan? Kadib waxaan galay gudaha mixraabka, waxaan arkay loox yara fidsan oo wax ku qoran yihiin. Waxaan damcay inaan akhriyo, balse ma aynan ku qoreen luqadda Filibiinka iyo weliba luqadda Ingiriiska. Waxa ay ku qorneed luqad aan fahmi waayey markaas, balse gadaal ayaan ka ogaaday inay ahayd luqadda Carabiga, weliba qoraalkaas uu ahaa mid Quraan ah. Qoraalka halkaa ku qoraa ayaa sabab u ahaa inaan barto luqadda Carabiga oo aan jeclaado. weliba qoraalkaasi wuxuu sabab u noqday aan dhihi karaa inaan soo galo diinta Islaamka. Waqtigu wuxuu isrogaba, waxaan bilaabay inaan la saaxiibo oo aan raadiyo niman muslimiin ah. Kadib waan helay, waan iswada fahanay, waana wada xiriiri jirnay. waxaana ka wada sheekaysan jirnay caqiidooyinka iyo arrimaha diinta Islaamka. walow uu maalmaha ka mid igu yiri Alle subxaanahu wa ta'ala waa in la caabudo keligii oo aan waxna lala wadaajinin. arrintaa ayaa anigana argagax iyo yaab i gelisay, waayo markaan haystay madhabka Kaatooliga waxaan aaminsanaa inay jirto 3 ilaah ee sidee macquul ku tahay inuu jiri karo hal ilaah. ani ahaantayda ayaa isweydiiyey su'aasha. kadib waxaan gudagalay inaan sameeyo baaritaan aad u dheer, walow aan ku guulaystay markii dambe helena wadada saxda ah. waxaana ogaaday wadada saxda ah inay tahay in la caabudo Alle subxaanahu wa ta'ala keligii. waxaan kaloo ogaaday in 3dii ilaah aan ka sheekayn jirnay ay ahayd been la dhoodhoobay, deedna dhar loo xiray. marba marka ka dambayso oo aan wax aqriyo, waxaan ogaanayay nafteydana ay ogolaanaysay inay tahay diinta Islaamka midda saxda ah, weliba si tartiib ah, ilaa markii dambe aan qaatay diinta Islaamka. balse markaan qaatay diinta Islaamka, arrinkaygu halkaa kuma uusan idlaanin, oo waxaan jeclaystay inaan la wadaago qoyskayga inaan noqday qof muslim ah. balse qoyskayga qof waliba oo ka mid ah kama uusan daalin inuu ii sheegay waxyaabo ay ka sameeyeen reer galbeedka, iyagoo weliba igu dhahayay diintani waa diin dagaal. balse anigu waxaan damcay inaan ka dhaadhiciyo oo aan u sheego xaqiiqada dhabta ah, taasoo ka maqan iyaga. balse gebi ahaantoodba waxa ay ka fureysteen xaqiiqada dhabta ah dhagaha, iyagoo u janjeersada dhanka iyo dacaayadda. magacaygu waa Cabdullaahi Matthew Baron, waxaan ahay 43 jir. waxaan ka soo jeedaa magaalo yar ee loo yaqaan Brotherhead. waxaan qaatay diinta Islaamka muddo haatan laga joogo 20 sano ka hor. waxa uu bilowday safarkayda islaamnimada markii aan bilaabay jaamacadda, oo waxaan halkaa kula kulmay gabar muslimad ah oo asal ahaanteeda ka soo jeeda dalka Kuwait. gabadhaas oo ku nooleed magaalada aan markaasi anigana ku noolaa. kadib markii aan aqoonsaday gabadhan, waxaan ogaaday inaysan iga yeelaynin inaan xiriir la yeesho, waayo lama mid ahayn gabdhaha kale ee markaasi jaamacadda dhigto, waayo mid waliba waxa ay lahayd saaxiib markaasi u gooni ah. waqtigaasina waxay ahayd 90-meeyadii, mana aanan aqoonin wax ku saabsan carabta ama diinta Islaamka xitaa, ilaa waxyaabo yaryar oo aan ka maqli jira ma ahan miidiyaha. kadib waxaan bilaabay inaan dhex galayo jaaliyad markaasi muslimiin ahayd oo halkaa ku noolayd, oo waxaan ba yeeshay asxaab markaasi muslimiin ah, oo waxaan bilaabay inaan baranayo bulshooyinka muslimiinta ah weliba si qoto dheer. waana arrinta markaasi ii fududeysay inaan barto diintan weliba si qoto dheer. kadib markay ii idlaatay jaamacaddii, waxaan go'aan ku gaaray inaan la xiriiro gabadhii muslimadda ahayd ee markaasi i cajab gelisay. deedna waxaan ka dalbaday inay noqoto xaaskayga, waxayna ii sheegtay inay ku faraxsan tahay guurkeena, laakiin aynan macquul ahayn inaynu isguursanno maadaama aanan aniga markaasi ahayn muslim, oo waxay ii sheegtay inaysan diinteeda ogoleen inay guursato qof gaal ah. dhab ahaantii anigu waan ka naxay oo waan ka yaabay arrinkaasi, waayo waxaan aaminsanaa in qofka haddii uu jecel yahay qof kale uu u huri karo nafsadiisa. kadib waxaan isweydiiyey, waa maxay sababta ay kaaga soo tegi laadahay diinteeda, oo waa maxay sababta ay kaaga jeceshahay diinteeda adiga? taasina waxay noqotay arrin igu kaliftay inaan si qoto dheer uga fikiro arrimaha diinta Islaamka. inkastoo aan waxyaabo ku saabsan diinta Islaamka aan in badan aqriyay aanan dhageystay, haddana arrinkani marnaba ma aanan ka filaynin iyada. kadib markii aan baaritaan fara badan sameeyey oo aan ogaaday inay iga saxan tahay iyada, ayaan jeclaystay inaan la xiriiro iyada oo aan u sheegay inay iga saxan tahay oo aynan diinteeda ogoleen inay guursato qof gaal ah. sidoo kale waxaan jeclaystay inaan u sheego inaan qaadan rabo diinta Islaamka. kadib waxaan aaday masaajidka, halka ayaana laygu qabtay ashhaadka, oo halka ayaan ku qaatay diinta Islaamka
taariikhduna waxay ahayd 1995 bisha Janaayo. dhab ahaantii markii aan fiiriyo arrinkani haatan oo laga joogo wax ka badan 20 sano, waxaaba isleeyahay waxaa sabab u ahaa arrinkani iyo islaamidaada gabadhaasi jaceylka aad u qabto awgii. balse waxaan ogaaday in jaceylka Rabbi subxaanahu wa tacaala aan la barbardhigi karin jaceylka dadka kale. soo gelistayda diintan islaamka ee siloon ayaa ah shayga ugu weyn ee aan sameeyay noloshayda, taasina Rabbi subxaanahu wa tacaala ayaan ugu mahadnaqayaa. رأيت أن حب الخالق لا يعادله حب آخر، وأن دخولي في هذا الدين الحنيف كان أعظم ما قمت به في حياتي، والحمد لله رب العالمين.